Money Heist waxa uu raacayaa koox tuugo ah oo isku dayaya inay dhaca ka fuliyaan Royal Mint of Spain. Maskaxda ka dambaysa dhaca waa professorka, kaas oo qabsaday qorshe uu markii hore sameeyay aabihii tuuga ahaa, isaga oo wax walba ka maamulaya goob qarsoodi ah oo ka baxsan bangiga. Dhaca gudaha waxaa fulinayay koox aan is aqoon oo leh xirfado kala duwan iyo naanaysiyo magacyo magaalooyin ah. Hogaamiyaha kooxda gudaha waxa uu ahaa Berlin, walaalka professorka, oo ah qof kulul oo xamaasad badan, isla markaana qaba cudur dilaa ah oo sannado yar gudahood dishi doona. Waxaa kale oo jiray aabbaha iyo wiilka Moscow iyo Denker, laba walaalo ah oo Serbiyaan ah, Helsinki iyo Oslo, kabiirka been abuurka Nairobi iyo Tokyo iyo Rio, oo xiriir jacayl yeeshay intii qorshuhu socday. Ujeeddada weyn ee dhaca waxay ahayd inay dadka bangiga ku jira, oo ay ku jirto gabadha safiirka Britain Alison, u haystaan baaqi si ay uga faa'iidaystaan mashiinada daabacada lacagta oo ay ku daabacaan 1 bilyan oo euro. Wadahadalka la xiriira laamaha ammaanka waxaa hogaaminaysay Raquel Murillo, balse professorku si qarsoodi ah ayuu xiriir ula samaystay si uu xog uga helo. Markii hore xiriirkaasi wuxuu u ahaa mid ganacsi, balse ugu dambayn wuxuu dhab ahaan jacayl ugu dhacay, taas oo xaaladda adkaysay. Markay Raquel ogaatay runta, way burburtay oo isku dayday inay xirto professorka, laakiin iyada qudheeda ayaa lagu soo daray qorshihiisa, waxaana ka soo horjeestay saaxiibadeed. Gudaha bangiga, dhibaatooyin kale ayaa ka dhex dhacay. Agaasimaha guud ee Royal Mint, ninka khiyaano badan Arturo, ayaa dhib badan ku noqday kooxda. Saaxiibtiisa uurka leh Monica ayaa lagu qabtay iyadoo qarinaysa taleefan, Berlinna wuxuu ku amray in la dilo. Balse Denker ayaa khiyaameeyey oo been ka dhigay dilka, isagoo qariyay Monica, taas oo keentay inay labadoodu jacayl yeeshaan. Helsinki ayaa qasban noqday inuu dilo Oslo kadib markii uu si daran u dhaawacmay iskuday baxsi oo ay sameeyeen qaar ka mid ah la haystayaasha, halka Moscow uu ku dhintay dagaal rasaas ah oo ay la galeen booliska. Daqiiqadihii ugu dambeeyey, ciidamo gaara ah ayaa gudaha u galay Mintka. Kooxdu waxay la baxsatay lacagtii iyagoo isticmaalaya tunnel dhulka hoostiisa mara, iyagoo la socda Monica. Berlin ayaa goobta ku haray si uu wakhtiga ugu iibsado kooxda kale, wuxuuna ku dhintay israsaasayn booliska ah. Intaas kadib, kooxda waxay kala tageen iyagoo lacagtii wata. 2 sano kadib, kooxda way kala firdhatay. Helsinki iyo Nairobi waxay ku raaxaysanayeen Argentina. Denver iyo Monica, oo hadda loo yaqaan Stockholm, waxay ku noolaayeen Indonesia, halkaas oo ay ku guursadeen oo ay ku dhaleen wiil ay ugu magac dareen Enati. Professorka wuxuu guursaday Raquel, oo hadda loo yaqaan Lisbon, wuxuuna la noolaa hooyadeed iyo gabadheeda yar. Tokyo iyo Rio weli way wada joogeen, iyagoo nolol fudud ku haysata jasiirad yar oo Panama ah. Laakiin Tokyo waxay ka xiisaysay noloshii magaalada weyneyd oo way ka tagtay jasiiradda. Markii Rio uu wacay isagoo adeegsanaya taleefan satelite ah, saraakiisha ayaa helay goobtiisa oo qabtay. Rio si toos ah looma geyn maxkamad, balse amar uu bixiyey Ali Sierra, oo uur leh, ayaa lagu geeyey meel qarsoodi ah oo lagu jirdilay si looga helo xogta kooxda. Kooxdu waxay dib isu abaabuleen si ay Rio u badbaadiyaan. Qorshahoodu wuxuu noqday inay dhac ka fuliyaan Bank of Spain, si ay ugu qasbaan dowladdu inay sii dayso Rio. Qorshahani wuxuu markii hore ahaa mid uu Berlin diyaariyey. Kuwa caawinayay waxaa ka mid ahaa saaxiibkii carruurnimada ee Denker, Manila, iyo asxaabtii hore ee Berlin, Bogota, Marseille iyo Palermo, kaas oo jacayl qarsoon u qabay Berlin. Dhaca cusub, professorka, Lisbon iyo Marseille ayaa bannaanka ka maamulayay, halka inta kale gudaha ka haysay bangiga. Hadafkoodu wuxuu ahaa inay dhalaaliyaan dahabkii badan oo lagu hayay halkaas oo ay u rogaan budo dahab ah, iyo sidoo kale inay helaan dukumiintiyo sir ah oo dowladeed. Waxay ku guulaysteen inay Rio lagu soo daayo iyadoo lagu beddelanayo qaar ka mid ah la haystayaasha. Intii lagu jiray isdhaafsiga, Arturo oo haddana khiyaano wata ayaa ku dhex booday bangiga, isaga oo isku dayaya inuu Stockholm ku soo ceshado. Xaaladdu waxay gashay qalalaaso. Markan, saraakiisha bannaanka joogta ee Ali Sierra iyo Colonel Tamayo ma raacin sharci, waxayna u bareerayaan inay kooxda laayaan. Lisbon ayaa la qabtay bannaanka, halka gudaha, madaxa amniga bangiga Gandia uu dagaal culus ku qaaday kooxda, ugu dambayna si naxariis darro ah u dilay Nairobi. Professorku wuxuu shaaciyey muuqaallo muujinaya jirdilkii Rio, taas oo keentay in Sierra lagu eedeeyo dembi oo ay noqoto dambiile la raadinayo. Ugu dambayn, professorku wuxuu si xeelad leh uga soo furtay Lisbon gacanta dowladda, laakiin Sierra ayaa raacday raadkiisa oo qori ku qabatay. Qaybta 5 Kolume 1, xaaladdu weligeed sidii ma adkaan. Professorka waxaa sii daayay Sierra kadib markii ay foolan gashay, balse gudaha bangiga xaaladdu waxay noqotay murugo. Kadib dilkii Nairobi, kooxda waxay rajo ka qabtay inay nabad gasho ku helaan sii daynta Gandia, balse Tamayo wuxuu u diray Tomander Sagasta iyo koox ciidan si ay gudaha u galaan oo ay tuugada ku dilaan, xitaa haddii ay la haystayaal dhintaan. Intaasi waxaa dheer, Arturo wuxuu isku dayay kacdoon hubaysan, taas oo ku qasabtay Stockholm inay toogato, taasoo iyada ka tagtay xanuun nafsaani ah. Dagaalka gudaha bangiga ayaa noqday mid dhiig badan ku daatay. Lugta Helsinki waa la burburiyey qarax, halka Tokyo, Denker iyo Manila lagu hareeray jikada iyagoo aan lahayn waddo baxsi. Markii Sagasta iyo Gandia gudaha u soo galeen, Tokyo waxay nafteeda ku qarxisay si ay wakhtiga ugu iibsato Denker iyo Manila, iyadoo iyadana dishay Gandia. Inta lagu guda jiro qaybta 5, waxaa jiray dib u xusuus Berlin oo markan xiriir la yeeshay wiilkiisa weyn Rafael, una qaaday heestii ugu horeysay oo ay weheliyaan Bogota, Marseille iyo xaaskiisa cusub Tatiana. Sida xusuustani ula xiriiri doonto sheekada ugu weyn weli waa qarsoon, laakiin sida ay taxanuun horey u muujisay, mar walba waxaa jira loolan iyo dhagar cusub. Like saar haddii aad rabto inaan soo koobno qaybta 2.
fiiri muuqaaladan kale ee xiisaha leh waad ku mahadsantahay daawashadaada waxaana ku arki doonaa mar kale dhowaan